waraduunkan bidhbidhkiisa nololeed dhammaantii marka loo qiimeeyo aakhira la dhinac dhigo waa wax yar baa ilaahay yidhi ilaa qaliil. waxa ilaahay subxaana wa tacaala nolosha adduun oo dhan ku sifaynaya inay tahay mataac. mataaca fi luga waxaa la yidhaahdaa maa yutamatacu bihi mima laa yabqa, waxa lagu raaxaysto ee aan waaraynin, waxa waxoogaa la isticmaalo ee markiiba dhammaada, kaas baa la yidhaahdaa mataac. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa qur'aanka adduunkani qiimaha uu ilaahay agtiisa ku leeyahay wuxuu yahay waa mataac baa la yidhi. waa mataaco markiiba wuu dhammaanaya. waxaa alle subxaana wa tacaala mataacnimadaa ku tilmaamayaa aayaad qur'aan oo tiro badan. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إلهي وحلي وحي مركي إلا واجب يالينا إلهي تيسو دررا وحي وراني أنما دبنا لو غدقو وحد كنت لأهدابا إلهي قل متاع الدنيا قليل وردون كان انت لغرا حيستوى وحي يربى إلهي آخره أي خير لمن اتقى وقال لك عبصد سبحانه وتعالى آخره يوفي عن بالي. وحي إلهي القرآن كله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نلش الدون بيكو فرحين الدون آخرة هدي الله يقوى متاع بالي سبحانه وتعالى. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دنيدة aynu markaasi ku kor noolnahay waa dhaldhalaalaya oo dhammaanaya. ilaahay baa wuxuu leeyahy innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha. waxaan ka yeelay baa ilaahay leeyahy dhulka waxa kor saaran oo dhan ziina, wax lagu qurxiyo. maxaa loo qurqurxiyey? linabluwahum ayuhum axsanu camala وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. waxaan u dhaldhalaaliyey baa ilaahay leeyahay adduunka kan in aan dadka ku itixaamo, inaan eego dadka kan iyo mawqifka ay adduunka iska taagaan. dabeetana waxaan ka dhigi doonaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala meel diriya oo la tirtiro. adduunku wuu yariyey, waa qaliil baa ilaahay yidhi. qiladu xaggay kaga jirtaa? yacni markaad leedahay shay wuu yar yahay waa in shay kaloo la dhinac dhigaa u jiro. waayo waa laba shay markaad isku qiimaysa ad odhanaysaa kana waa yariyey kana waa badan yahay. maxaa la dhinac dhigayaa lagu qiimaynayaa? waxaa la dhinac dhigayaa waxa ay dadku ka dooranayaan. bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa. waxaa la dhinac dhigayaa waa aakhiro. adduunka noloshiisaad dooranaysaan baa ilaahay leeyahy bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. adduunka waxaa la dhinac dhigaya marka koowaad ee yaraantiisa lagu tilmaamaya waa aakhiro. waayo labada inaad mid doorato weeyaan. inuu qofku aakhiro iyo naciimkeeda doorto oo adduunkan u arko daaru ibtilaa inay tahay, iyo inuu adduunka bidhbidhkiisa iyo ku raaxaysigiisa jeclaysto oo uu aakhiro ilaabo aanu isku mashquulin. waa labada mid. idan adduunku waa qaliil. wuxuu qaliil ku yahay jannada waxa yaallaa badan. jannada ilaahay wuxuu leeyahay waa nicmo tiro badan, waa beero, waa jannooyin, waa webiyaal, waa kullu shay lagu naciimaysto. wafaakahata mima yatakhayaruun walaxmi tayrin mima yashtahuun. wax wal oo bini aadamku uu baahdaaba way taallaa. idan adduunku wuu yariyey. wuxuu yariyey marka aakhiro loo eego. sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahy ma addunya fi alaakhira ila kama yajcal axadukum isbacahu haadihi fi lyam falyandur bima yarjic. adduunku aakhiro marka la dhinac dhiga buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu la mid yahay nin farta biyo geliyey badda. haddaad farta geliso maxaa kaa soo raacaya? yacni badda biyaha haddaad farta geliso inta in lag baa ku soo raacaysa. yacni gacantaadu inay qoydo unbaa ku soo raacaya. inta in lag baa hadhaysa. baddii oo dhan baa hadhaysa.
haddii adduun iyo aakhira laysdhinac dhigo min xayث اlkatra tira badnin marka laga eegayo haddii laysdhinac dhigo waxay u dhigmaan ba alla leeyahy subxaanaه wa tacaala in ay tahay waxaa yar waxa kaa soo raacaya aakhiro nimcadeeduna inay tahay tu tiro badan. bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadlan hore ogaag wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra.